إنا لله وإنا إليه راجعون labadan yaryar sawirkan waxay gurayaan oo ay soo qaadeen hilibkii hooyadood oo qaraxii muqdisho shalay ka dhacay hooyadood goob u dhow ayay ku qanacsan jirtay waxaan ay labadan inana yaryar ay soo gurayaan kartoonka ugu ururinayaan waa hilibkii hooyadood waana sawirkii ugu saameynta badnaa oo ka qiiraysiiyey dhammaan ummadii aragtay waa wax aad iyo aad looga naxo weeyaan hilibkii hooyadood oo ku ganacsan jirtay halkan ayay gurayaan waa wax aan weli adduunyada lagu arag waxaan oo kale wax adduunyada weli lagu arkay maaha oohin iyo qiiro iyo naxdin aad u fara badan ayay dadku dareemayaan bal maxaa lagu cabiri karaa labada cunug yaryar oo 9 jir ilaa 8 jir ah ayaa hooyadood oo ku ganacsan jirtay goobta qarax oo haleelay waxayna ka mid ahay dadkii la waayay meydkeeda oo la waayay meel ay jaaniyo cidhib dhigtay caruurtiina waxaa loo sheegay in hilibyahan ay yihiin kuwii hooyadood markii la qiyaasay kadibna sawirkaas ayaa laga qaaday waa sawirkii ugu saameynta badnaa ugu qiirada badnaa ugu yaabka badnaa ugu mucjisada badnaa sawirkaasoo dunidoo dhan ka yaabiyey soomaali xitaa marka laga tago warbaahinta caalamka oo dhan ayaa sawirkan hadal haysa labadan cunuga yaryar ama labadan wiil yaryar oo hilibkii hooyadood ka ururinaya kartoonkaas kusoo ururinaya isagoo hilibkii googa'ay wallaahi waa wax aad iyo naxdin leh maxaa lagu cabiri karaa sawirkan waxaa la odhan karaa waa sawirkii ugu naxdinta badnaa buu la odhan karaa usbuucyadan ee saxaafadda ama miidiyaha gala bal ka fikir oo niyadda gasho adiga oo hooyadaa halkaa ay ku dhiman lahayd maxaad u malaynaysaa waa 2 ciyaala waa 8 jir ilaa adigu iyo 11 jir inta u dhaxaysa mana garanayaan dadka badan farabadnaantii dadkii meeshii ku dhintay hilbihii dadkii qaar ka mid bay iska soo urursadeen ma garanayaan inay hooyadood tahay inay nin tahay inay qof kale tahay wallaahi waa wax laga naxaabay noqon kartaa waa wax laga naxo weeyaan waa wax laga naxo sawiradan oo kale xitaa taariikhda marka dib loogu noqdo muddo aad u fara badan 1945kii xilligii lagu dhuuftay Jabaanka nuclearkii Hiroshima sawiradii laga qaaday taariikhda galay buugta world history-ga ku jira xitaa wuu ka dareen badnaaday sida tifiyada adduunku sheegeen waayo waa wax aad iyo aad u yaab badan weeyaan aad iyo aad u yaab badan waana kulli taariikhda Soomaalidana uu geli doonaa taariikhda adduunkana uu geli doonaa qof yar dhalinyaro oo ciyaal oo waxba garanayn dee ubadkiisa loo diliyo laakiin sawirada ugu saameynta badan qofku marka uu saa imika hal mar u fikiro uu sidii wax u dhaceen uu cabiro waxyaabaha ugu yaabka badan ugu qiirada badan ugu oohinta badan weeyaan ilmahan yar hooyadii oo dhimatay kartoon ku guraya hilibkeedii isagoo ku dhex koraya saas oo maalin kastana arkay dadkii oo dhimanaya dadkii oo sida loo xasuuqayo dadkii oo xaaladoodu ay khatar gelayso dadkii oo gubanaya wallaahi aad iyo aad wax allaale waxaynu ku cabirno ma garanayo wax allaale waxaynu ku qeexno ma garanan karno dunidu way yaaban tahay arrinkanna arrinkii ugu weynaa buu noqday ee ugu saameynta badnaa sawirkan oo kale waa sawirkii ugu xanuunka badnaa sawiradii ilaa shalay toole ilaa maanta dadkii markii dadkii la gurayay intiina ka soo gashay gadaal imika hadeer lagu soo biirtay labadan wiil yaryar waxaa ku dhimatay hooyadood oo ka ganacsan jirtay goob ka agdhow meelihii qaraxu ka dhacay taasoo ku geeriyootay labadan wiil yaryarna waxay markan kartoonkan ku ururinayaan hilibkii hooyadood ayay kartoonka ku soo ururinayaan waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u xanuun badan aad iyo aad u xanuun badan lama odhan karo xanuunkaas meel aad u fog baynu ka dareemi karna maaha wax la arkay maaha wax la maqlay maaha wax la cabiri karo ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto dadka intii dhimatay iyadoo dhimatay kolleyba marbay dhiman lahay laakiin si xanuunka inta nool haysta ayaa xun xanuunka inta nool haysta ayaa xun ilaahay ha ugu bedelo awilsan ha ugu bedelo wax khayr leh ilaahay ugu bedelo ilaahay dhibaatada iyo xanuunka hooyadood ay kartoonka ku ururiyeen ilaahay khayr ha ugu bedelo
kolley sawirkani maadaama uu yahay saameyntii ugu ballaadhnaa labadan caruurana ay caruur kale kasii yaryar yihiin hooyadaasi halkaas ay uga soo saari jirtay waynu ognahay hooyooyinka soomaalidu caruurta iyagaa koriya mid tamaandho iyo u iibisa yaanyo iyo mid bur iyo bajiyo duubta oo saambuu samaysa oo suuqa fadhiisata saasii caruurta soomaalida inta badan lagu koriyaa sidii lagu korin jirayna waad aragtaan in hooyooyinkii lagu dilayo meelihii ay fadhiisan jireen iyo meelihii caruurta bariiska uga soo saari jireen oo caruurtii ay hooyadooda ururinayso hilbihii ay kartoonka ururinayso ma aha waxaynu qiyaasi karno ganacsatada soomaalida iyo dadka ilaahay waxsiiyey waxaan ugu baaqaynaa caruurta yaryar hooyadood hilibkooda ku ururisay kartoonka in loo naxariisto in la kafaalo qaado insha allah waxaanu samayn doonaa fundraising ayanu samayn doonaa ama lacag ururin dadka gaar ahaan labadan caruura iyo familigii caruurta hooyadood kartoonka ku ururinaysa muuqaalkana shargare waa Al-Jazeera News oo kaaga tegaysa ilaahay ha u naxariisto caruurtaas iyo dhammaan intii ku dhimatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.